waata daawadeel waxa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena maanta maalmood waxaan ka warramay qaybtii hadda ugu dambeysay todobaadkii la soo dhaafay isbedelka wadanka lagu soo celin karo ama sida dadka Soomaalida looga baahan yahay in ay meesha ka kacaan oo wax isbedel keenan hadda waxa noo soo diray waraaq ama email noo soo diray wiil Soomaaliyeed oo la yiraahdo Yonis oo jooga wadankaas Ingiriiska magaalada Bristol waxaana uu yiri aad iyo aad ayaan u jeclahay wax qabadkiina ku aadan danaha Soomaaliyeed Ilaahay khayr ha idinku bedelo waa mahadsantahay intaas kadib ayuu yiri Cabsalaan iyo asxaabtiisa su'aal waxa nagu dhahdeen wadanka aan tagno niyahow sidee noogu suurgelaysaa faahfaahin ma naga siin kartaa adiga nakiciyay waana ku raacsanahay laakiin faahfaahin please tusaale ahaan ayuu yiri jaamacadda markaad bilaabayso macallin aad ku dayato ayaad leedahay oo yaanu ku dayan karnaa wargelintiimay akhbaar ayaan idinka sugeynaa insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa Yonis oo nooga soo diray emailkan wadankaas Ingiriiska West of England Bristol haddaba saaxiib Yonis waxa aan ku dhihi lahaa ama aan ku sheegaya qof kasta oo Soomaaliyeed ayaa mas'uuliyadu ka saartay in isbedelkeena ama wax fiican wadankii ku soo kordhiyo qof kastana waa lagu dayan karaa adiga ruuxadaada Yonis ahaan waa lagu dayan karaa laakiin muhiimadu waxay tahay in aan meesha ka kacno oo aan wax bilowno fadhi ku dirirka waa inaan iska bedelnaa sanadka 2010ka waa sanad cusub Ilaahay wax fiican nooga dhiga laakiin Soomaali ahaan waxa la rabaa inaan anagu istaagno oo isbedelkeena cidno keenaysa malaha sida aan soo sheegay hadda toddobaadka hadda la soo dhaafay markii aan joogay hadda Mareykanka ma aan rabay inaan Kenya aad waxyaalo fara badan baa lagu yiri waxa la yiri war meesha isku tagin waa lagu dhacayaa boorsooyinka laga dhacayaa Afrika waa meel saana waa meel sidaas ah yaani baqdin baas baa jirto dadka qurbaha jooga gaar ahaan wadamadan hore maray oo ay ka qabaan Afrika laakiin markii aan tagay waxyaalo fara badan baa arkay oo ay baxay sida u maleynaysid maaha ogow markasta hadda lagu yiraahdo Soomaaliya waa la isku dhacaa waa la isku furtaa waa la isku dilaasanaysan maalin walba dad taga jira oo ka soo noqda dad ganacsiye ka sameeyay jira dad ururo ku leh baa jira samafala dadkaas sidee ku nool yihiin miyaa la dilaa miyaa la dhacaa waa inaan tagnaa oo aan ka gudubnaa darbigan baas oo baqdinta lagu jirto horta mid ugu horeysa oo laga rabo inaad sameyso waxa weey in aad horta meeshii tagtid ballan baa ka qaadaya marka aad tagtid Soomaaliya in fikradii ay qabtay wax weyn isku bedeliyo dad fara badan oo lagu dayan karo way jiraan hadda maalmood marka Mombasa joogo waxaan bartay dhalinyaro Soomaaliyeed oo la yiraahdo xisbi ay sameeyeen la yiraahdo hanolaato waxa ka yimaadeen wadankaas Ingiriiska hadda Yonis saaxiib meesha aad degan tahay dhalinyaradaas kale oo lagu dayan karaa si fiican ayaa uga helay waxa ay rabaan inay sameeyaan video oo ka soo dooyo waana soo gelin doonaa Ilaahay hadduu yiraahdo todobaadyada soo socda dad aad u fara badan oo kale way jiraan oo Soomaaliyeed oo lagu dayan karo qaaraan aqoon baa jira qaaraan aqaana jira laakiin muhiimadu waxa weey adiga ruuxaad waa inaad noqotaa qofkii lagu dayan lahaa isbedel ayaa laga rabaa Yonis saaxiib Ilaahay hadduu yiraahdo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada waxaan kula talin lahaa noqda kuwii lagu dayan lahaa waa inuu toddobaadka soo socda iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh